ciidamada sida gaarka u tababaran ee UK iyo Mareykanka ayaa ku sugnaa dalka Ukraine tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada kala dhaxeeya Ruushka dabayaaqadii bishii Febraayo sida ay sheegeen ila ka tirsan sirdoonka Faransiiska oo u waramay warbaahinta gudaha ee wadankaas. Sheegashadan sidoo kale waxay banaanka keenaysaa marka ila diblomaasiyadeed iyo kuwa loo qaateenaba ay eegeen marka la fiiriyo sida booqashada kadiska ayaan horey loo sii qorsheen ee lama filaanka ay warbaahintu ku tilmaantay uu ku tagay Kiev ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Hogaamiyaha Ingiriiska ayaa lagu soo waramay inay ku hareereysnaayeen ilaalo ka tirsan ciidamada gaarka ee SAS loo soo gaabay magacooda ee caanka ah inkastoo aan sheegashadan si rasmi ah loo xaqiijin. unugya ka tirsan SAS ayaa Ukraine joogay tan iyo bilowgii dagaalka. waxaa sidoo kale dalka jooga ciidamada Mareykanka ee Delta Force ayuu dabcan leeyahay mid kamid ah ilo muhiim ah oo ka tirsan warbaahinta gudaha wadanka Faransiiska oo soo xiganaysa ila ka tirsan sirdoonka Faransiiska. waxa uu intaa raaciyay in Ruushku uu si wanaagsan uga warqabo waxa uu sheegay dagaalka qarsoodiga ah ee xuduudahan qalaad gaar ahaan kumaandoskani halka ka wadaan. warbaahinta Faransiiska ayaa warbixintan ku daray xigihiisa dalka Ukraine. boqortooyada midowday UK iyo Mareykanku waxay kamid ahaayeen taageerayaasha ugu firfircoon ee Kiev. Johnson ayaa lagu soo waramayaa inuu si shakhsi ahaan ugu booriyay dhigiisa wadanka Ukraine inuu sii wado dagaalka ka dhanka Ruushka oo aanu ogolaanin nabad ilaa shuruudo wanaagsan loo soo bandhigo. qorshaha dagaal hurinta reer galbeedka ayaa sida muuqata toddobaadkii hore xaqiiqoobay kadib markii uu madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub uu dhawaan sheegay in dagaalka loogu guuleysan doono oo qura goobta dagaalka mar uu isaguna sidoo kale booqanay Kiev. warbaahinta Britishka ayaa horey dhowr sheeko uga qortay saraakiil howlgaba oo SAS ka tirsan in ay ku biireen dagaalka Ukraine si ay khibrad iyo aqoon ugu biiriyaan iska caabinta ay wadaan ciidamada qaranka ee Ukraine. yelkadeeda waxay qoreen in mushaharaadkooda uu bixinayo dal kale oo Yurub ah oo aanay magac dhabin kaasoo lacagaha u marinaya shirkad ammaan oo gaar ah halkii ay dowladda UK ka masruufi lahayd sida lagu qoray dabcan warbaahinta Daily Mirror. tani waxay banaanka keenaysaa in reer galbeedka si muuqata iyo si aan muuqanba ay u barbar istaagan yihiin maamulka Kiev iyaga oo culayska saaranna Kiev ay la socdaan. haddana waxay muujinayaan taageero maangal ah iyo sidoo kale qorshayaal kale oo ugu yaraan wax badan ka tari kara howlgalka Kiev ay isaga maquuninayso militariga Moscow ka soo duulay ee doonaya in maamulka Kiev ay meesha ka saaraan. Putin marar badan ayuu banaanka keenay damaca reer galbeedka ee ku saabsan inay sii hurinayaan colaadda ka socota wadankaas, laakiin waxa uu si toos ah u yiri marna waxba kama bedeli karaan danaha iyo doonista Moscow ee duulaan weerarka kan, taasoo muujinaysa inuu qirayo in isku daygiisa uu hirgeli doono goor kastaba ha noqotee.